Balasma University Cup ayaa laga daafuray degmada Gurceel. Koobkan waxaa soo qaban qaabiyay ururka ardayda jaamacadda waxaana ka qayb galaya 6 kuliyadood. Ujeedka koobkan ayaana isdhexgalka ardayda maadaama sportsku yahay isdhexgalka bulshada. Furitaanka koobkan waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Gurceel, maamulayaasha kambasyada Galgaduud iyo Gurceel ee jaamacadda. Waliba ardayda jaamacadda u soo daawasho tagay Sona Camari garoonka si u dhiirigeliyaan kooxaha kala metelaya. Tartankan ayaana lagu bilaabay IT waliba social science. maamulaha jaamacadda kambaskeeda Gurceel Aadan Cabdi Maxamed iyo waliba maamulaha guud ee kambaska Galgaduud Ibrahim Xuddin Hiraabe ayaa ka warbixiyay ujeedka koobkan. xalfadan oo maanta aan ku furayno tartanka Plasma Cup ee degmada Gurceel taas ay ku dheeli doonaan fakultiyada jaamacadda ama collegeska jaamacadda ay ka kooban tahay taas oo aan ugu talagalnay inay isdhexgalka yoolka guud aan ka leenahay tahay maadaama jaamacadda Plasma ay ku taal Galgaduud campus markaan dhayno 3 xarumood oo xarunay isdhexgal ay ka timaado kuliyadaha halkan ka jira markay ciyaaraan markii kuliyad ka soo baxdo waxa ciyaari doonaan Nusmareeb iyo Cabudwaaq runaantii taas oo aan rabno isdhexgal guud oo ardayda ah inaan gobolka ka sameeyno iyo sidoo kale aan sameeyno ardaydu inay isku bartaan dhanka waxbarashadu isku yaqaanaan dhanka sportiskana ay ka soo baxaan dad matali kara xul degmada Gurceel ee kambaska ku yaala matali kara runaantiina maanta barnaamijkan halkaas ayuu daaran yahay tartankan waxaan ugu talagalnay in ay isku isdhexgal barnaamij isdhexgal oo u dhaxeeya kuliyadaha kala gedisan ee jaamacadda tartankan waxa soo agaasimay naadiga ururka jaamacadda ee ururka ardayda galabta oo aan furitaanka barnaamijka ka rabno waxa tartanka qayb ka ah 6 kuliyadood oo aan u soo kala xulnay oo ardayda ay ku ciyaari doonaan kuliyadaha kala gedisan haddaan dul marno kuliyadda business management ayaa kamid ah kuliyadaha ciyaari doono sidoo kale information technology ayaa kamid ah kuliyadaha ciyaari doono waxa kale kamid ah kuliyadda ama faculty-ga nursing iyo sidoo kale faculty-ga public health iyo faculty-ga medical lab technology sidoo kale kuliyadda social science ayaa iyadana qayb ka ah 6daas kuliyadood ayaa loo kala qaybiyay 2 group oo ciyaarta daafurka galabta halkan kaga bilaaban doonto. sidoo kale gudoomiyaha ardayda jaamacadda Axmed Nuur Cali Ciise ayaa ballan qaaday inuu abaalmarino qaali ah siin doono kooxda koobkan qaada. waxyaabaha markii uu tartanku dhamaado insha Allah aan ardayda ama ku abaalmarin doonaan waxa kamid ah inaan darajooyin bixi doono oo aan abaalmarin doono kooxaha kaalinta koobaad galo iyo sidoo kale kooxda kaalinta labaad gasho iyo kooxda kaalinta koobaad gasho iyo sidoo kale inaan tiimku ballan qaadnay inaan abaalmarin doono kooxda anshax wanaaga ama kubad wanaaga ugu quruxda badan soo bandhigto koox walba waxaan ka rajaynaynaa marka xirfadeeda iyo skillkeeda iyo waxqabadkeeda inay meeshan ku soo bandhigto. agaasimaha arrimaha bulshada degmada Gurceel oo goobjoog ka ahaa furitaanka koobkan ayaana jaamacadda Plasma kaga mahad celiyay horumarka ballaaran ee ka wada degmada. sportsku wuxuu kaalin weyn ka qaataa isdhexgalka bulshada dhinaca kale markii laga fiirsho waa exercise oo caafimaadka waxa la yiraahdaa in uu aad ugu wanaagsan yahay la sheegaa in ardayda ay isdhexgal sameeyso kuliyadaheeda kala duwan kadibna hadda waa heer degmo heer gobol ay u ciyaaraan waxay muujinaysaa xadaarad iyo ilbaxnimo jaamacadda Plasma ay ardayda siinayso. jaamacadda Plasma waxay kamid tahay jaamacadaha muddada dheer deegaankan ka shaqeynayay arday badanna soo saaray intifaacna u leh magaalada Gurceel iyo dhammaan gobolka Galgaduud maamulkeeda oo nooga mahad celinayna in arday intaan la eego quruxdaan leh akhlaaqdaana ay soo saaraan